lamaana waayela ahaa u dhashay dalka Mareykanka kuna noolaa gobolka Illinois ayaa la sheegay in ay geeriyoodeen isku saacad iyagoo gacmaha is haysta kuna wada sugan hal isbitaal oo daweyn loo geeyay. Wargeyska Daily Harden ayaa qoray in Isaac Fatkin oo 9 sano jir ah iyo xaaskiisa Teresa oo 89 sano jir ah ay geeriyoodeen daqiiqado aad isugu dhow. Waxa ayna lamaanahan u geeriyoodeen cudurka asaasaqa. Lamaanahan ayaa la sheegay markii ay geeriyoonayeen in ay gacmaha is haysteen shaqaalaha isbitaalka Highland Park Hospital oo ogaaday in lamaanahan xaaladooda ay liidato ayaa go'aansaday in ay is agjiifiyaan laba sariir oo isku dhagan kadibna gacmaha ay isku galiyaan. gabar ay dhaleen lamaanahan geeriyooday oo lagu magacaabo Clara ayaa warbaahinta u sheegtay in waalidkooda ay ahaayeen kuwo isjecel oo aan kala maarmin. Waxa ayna tilmaantay in aabaheed iyo hooyadeed ay isku qabeen jacayl xad dhaaf ah. Hooyo iyo aabbo waxa ka dhaxeeyay jacayl xad dhaaf ah. jacaylka isku hayeen waxa uu ahaa mid xoog badan midkoodna ma noolaan karin midka kale la'aantiis ayay tiri gabadhan ay dhaleen lamaanahan geeriyooday ayaa isqabay muddo 69 sano ah. Waxa ayna isku dhaleen 3 caruur ah. warbaahinta dalka Mareykanka qaarkood ayaana si weyn warbixino uga qoray waayeeladan jacaylka ka dhaxeeyay ee hal goob ku wada geeriyooday muddo 40 daqiiqo ay u dhaxaysay.